رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الجمع بين الصلاتين. لوضع الصلاة اللي سجيه أبواب تديوان. باب جوازه في السفر في وقت إحداهما. وباب يهي جوازه جواز الجمع جمعين تبنانين ديدا أما لوضع الصلاة اللي سجيه بناني ديدا في السفر كدحديث اللي سجيه في وقت إحداهما لوضع الصلاة مدود وقت جيدنا اللي سجيه لوضع مد كم إذا وقت جيدا لوضع الصلاة اللي سجيه ولا وضع تكذو أيو بابي. waxaa soo galaya ama midii horeysay baa la soo dibdhigayaa oo jamcu taakhiir baa la yiraahdaa, ama tii dambeysay baa la soo hormarinayaa ta kale la tukanaya oo jamcu taqdiim baa la yiraahdaa. labadu way soo galayaan, waxayna ka mid tahay sidoo kale taysiirka iyo fududeynta shariicada ka mid tahay. sida gaabintaba loo siiyey musaafirka ayaa waxaa loo siiyey inuu salaadahana kulmin karo waqtigooda isu geyn karay. salaadaha la kulmin karayo markaa waa duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cisha. salaada subax iyadu cidna uma tagto, waa salaad goonideeda u taagan waay. طيب intaan hore u soconin su'aal xalay soo aroortay oo ahayd qaxootiga oo musaafiriin baa mise musaafiriin ma aha. iyaga laftoodu inay musaafiriin yihiin ma rumaysna, laakiin hal qodob markii la joogo bay wadaadadooda qaar ka mida waxay ka doodaan inaynan jumcada lagu lahayn. halkaa qodoboo jumcada ku saabsan bay dood geliyaan. ama cibaadaadka intooda kale ama soon ha noqoto ama salaadaha ha noqoto xugum musaafir mana isa siiyaan mana qaataan. oo maalan salaadaha ma gaabiyaan inay gaabiyaanna dadka uma sheegaan wadaadadooda. soonka marka la gaadho waad iska afuri kartaan oo dib baad ka qallayn kartaan oo musaafiriin baa tihiin ma dhahan, bal wax weeyaan waxay ku laasimiyaan dadku inay soomaan laana musaafiriin ma. laakiin markay jumcadu timaado baa waxaa la yidhaahdaa ma nihin deegaan ma nihin, sidaas daraaddeed jumcada laynuguma laha. halkaasay doodu gashaa marka. qodobkaa marka waxaan ugu tegi doonaa kitaabka salaada jumcada ka hadlaya ayaa inoo soo socda. kaasaa munaasabadiisu ay tahay. xaggee bay ka timid fikradan ah annaga qaxooti baana la dhahayo jumcana laguma laha. meeshaasaan kaga hadli doonaa insha allahu tacaala. waana fikrad aan sax ahayn, islahaanteeda sax maa. leanno ruuxu hadduu yahay musaafir yahay waa inuu axkaamtii musaafirka kulli wada qaato. laakiin qaybna waan ka qaadan qaybna waan ka tagayaa, waa nooc taxakum oon sax ahayn. masalada labaad ee dadkani meel kale maba deganaba. dadkan dhulkii ay deganaayeen baa nabadgelyo ahaan uga soo tageen meeshan ay degaan. wax dejiyeyba ama UN baa dejisoo ku haysa ama cid kalaa ku haysa. ilaahay wuxuu qadaray inay meesha soo degaan. meesha ay degan yihiin ilmahoodii bay keensadeen, wayna ku ilmo dhaleen. carruurtay ku dhaleen baa qaangaadha. meel hadda qumanay u socdaanna ma cad. طيب sida saxda marka waxa way meeshay hadda degan yihiin bay muqiimiin ku yihiin.
meeshay ka yimaadeen asalka iyo Soomaaliya marka ay safar ku tagaanna markaasay musaafiriin yihiin markay deegaamadii asalka ku noqdaan oo socod ahaan ku tagaan oo carruurtoodii iyo reerahoodii qaxootiga ay degan yihiin meeshaasay musaafiriin ku yihiin laakiin deegaan ahaan halkanay degan yihiin halkan markay yimaadaanna xugum muqiim bay qaadanayaan markay ka tagaanna xugum musaafir bay qaadanayaan waxaa si qariib ah Soomaaliga qaxootiga joogay wadaadadii waxay ku yiraahdeen jumca laguguma leh isla wadaadkii sidaa ahaa markuu gaarisa soo dago jumcadii waa lagu leeyahay qaxootigu ka soo tago waana Soomaali qaxootiga wali laakiin qaxootigu buu ka soo tago wuxuu yimid gaarisa Nairobi kuwa joogay kama doodsano oo jumcadii waa tukanaya ama waa oogahaya balaayada dhadhaab ku dhacday maxay tahay radii Sweden marka fikirkaasi aslan wax saxsan meel ma saarna waanu tagi doonaa insha Allah taala ila waqti hore taagnaan jirtay laakiin masaladaasi waa mas'alo aan ku dhisnayn wax rasmi ah kuma dhisna baabu jawaazi fi safar ninkala jira su'aal xagga iga weydiinay ma fahmin su'aashiisa xalay maxay hayso hadduu ruuxu amba baxayo Nairobi مثلا ka baxaya salaadii duurka soo gashay duurkii buu tukaday duur kadib uu rabaa inuu dhaqaaqo meeshuu deganaa buuna joogaa casarkii intuu soo hormariyo ma la tukan karaa waa darsigan caawa kii xalay ma ahayn caawan ka hadlaynaa jamcinta salaada ama masalada gaabintu ayadu inaad safarka gasho mooyaane gaabin laguma ogola gaabintu goormay ku bilaabanaysaa badankood culimadu waxay qabaan magaalada degan tahay guryaha ugu dambeeya marka dhaafto halkaasay ruqsada gaabintu kaaga bilaabanaysaa laakiin magaaladii aad deganeed adoo dhex jooga gaabin ma lihid laana safarkii ma gelin saasay u badan yihiin aathar baana ku soo aroortay ama masalada jamcintu way noo socotaa waa darsigeena caaw baabu jawaazihi fi safari fi waqti ihdahuma an Anas radiyallahu ta'ala anhuma qala wuxuu كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحوها إذا قرت ارتحل أوررته قبل أن تزيغ انتيسن إيلانين الشمس قرحذي انتينن إيلانين وأينن حق قلبيت كأول ليحنين وايس كالبركة أيسن كالليحنين وإن قلبيتو إيلانين هدو وقتك ررته أو دقاقه wuxuu ahaan jiray akhara mid dibdhiga adh-dhuhr dhuhrku dibdhigi jiray طبعا قبل أن تزيغ الشمس وdhuhrka ka hor macna dhuhrkii wali soo galin haduu rarto oo socodka bilaabay iyo safarta akhara mid dibdhiga buu ahaan jiray adh-dhuhr dhuhrku dibdhigi jiray ila waqti al-'asr asrka waqtigiisu uu dibdhigi jiray thumma kadibna nazala waa dagi jiray xilligii asrka marka la gaaro فجمع مركاسو كل من جري بينهما دحضوده اسلتو كان جري فإن زاقت هدي إيلته هدي قرحدي ليحتو كلا بركة كليحتو حلقي دور كلا قارو قبل أن يرتحل انتو سنررنين انتو سنصعد كي رشد باللابين هدي بلا قارو حلقي دور كو قرحدو إيلته صلى وحو تكنجري الظهر كو تكنجري ثم كدبنا الراكبة وافولي جري duurka oo marka taagan u tukan jiray kadibna rakiba waa fuul jiray gaadiidkiisu fuul jiro socodku gali jiray muttafaqun alayh wa fi riwaayat kale waxa ku sugan oo muslim u sugnaatay kaana wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ida goortii araada uu doono an yajma'a inuu kulmiyo bayna as-salatayn labada salaadood dhexdooda fi safari safarka dhexdiisa yu'akhiru middiga ay dibdhiga ayuu ahaa adh-dhuhra dhuhrka حتى يدخل إلى أوغلو أول وقت العصر عصر كوقتيس بلوغيس إلى أوصوغلو أيو دبلغي جري ظهرك ثم كدبنا يجمعه كل من جري بينهما لوضع الصلاة والدحضور طبعا وقت العصر كأيو السقوق جري أو وذا تكن جري حديث كان
waxaa daliishaday culimmada qaarkood oo qaba waxaa bannaan oo keliyata waa jamcu ta'khiir. waxaa kuu bannaan uun salaada hore inaad soo dibdhigto oo midda ka dambaysa wakhtigeeda aad la tukato, sida duhurka inaad soo dibdhigto oo wakhtiga casarka la tukato, ama maqhribka inaad soo dibdhigto oo xilliga cishaha la tukato. ama jamcu taqdiimka oo intii dambaysay la hormariyo taasi ma bannaanay dhaheen. culimmada sidaa qabta ayaa xadiidkan ibnu cumar daliishatay. xadiidka waxaan dhihi lahaa anas, xadiidkan anas daliishaday oo waa riwaaya can axmed oo ibnu xasmi baa doortay, imaamu maaligna waa laga wariyaa. xadiidkan anas bayna daliishanayaane meeshan inoogu yaalla. waxaa ka mid ah culimmada sidaa qabta alimaam abu daawuud baa ka mid ah saaxibu sunan, oo wuxuu leeyahay laysa fii jamci taqdiimi xadiiun qaa'im. jamcu taqdiimka wax xadiia kuma sugna buu leeyahay oo sugan, wax xadiioo asaxay kuma sugna buu leeyahay. xaggee ka daliishanayaan xadiidka anas? waxay ka daliishanayaan, u fiirso, nebigu sal lla lay slam duhurkoon soo gelin hadduu socodka bilaabo duhurkuu dibdhigi jiray, soo ma? casarkuu u dibdhigi jiray, waa jamcu ta'khiir. ayib, haddii uu duhurkoo soo galay socodka bilaabayana duhurka unbuu tukan jiray. ayib, muu soo hormariya marka casarka? salla aduhra uma rakiba, lama dhihin salla aduhra waalcasra macan uma rakiba, lama dhihin. duhurka unbuu markaa tukanayaa, kadibna waa soconayaa. tabcan casarkana wakhtigiisi buu tukanayaa. waa xadiidkan marka daahirkiisay deliishadeen culimmadaasi oo waxay qabaan jamcu ta'khiir unbaa bannaane jamcu taqdiimkuma bannaana. waa ra'yi. ayib, wacan mucaadin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay waslam kaana wuxuu ahaa fii ghaswati tabuuka, dagaalkii tabuuk, idaa goortay irtaxala uu rarto duulaan nebigu uu qaado sal lay wasalam, duulaankii ugu dambeeyey wa. bal waxaa la yidhaahdaa safar uu nebigu galoo madiine kaga baxo waa safartii ugu dambaysay. waxa uun ka dambeeyey safartii xajka, safartiisii xajatulwadaacun baa ka dambaysay. dagaalka tabuuk waa duulaankiisii ugu dambeeyey wa. kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay slam fii ghaswati tabuuka, duulaankii tabuuk wuxuu ahaa idaa goortii irtaxala uu rarto qabla an taziiqa ashamsu, qoraxdu intaysan iilanin, ahara ayuu ahaa mid dibdhiga aduhra, duhurkuu dibdhigi jiray, xataa yajmacaha ilaa uu la kulmiyo salaata duhurka ila alcasri, casarka uu la kulmiyo, ilaa uu casarka la jamciyo isla tukado. yusaliihimaa xaal uu tukanayo, yusaliihimaa labada salaadoodba xaal uu tukanayo jamiican ayagoo idil, yacni dhammaantood buu xilliga casarka wada tukanaya. waidaa goortii irtaxala uu rarto bacda zayqi shamsi, qoraxda iilashadeeda kadib hadduu rartana, oo xilligii duhurku soo galay ah, sallaa wuxuu tukan jiray aduhra, duhurka iyo walcasra, casarka jamiican wada jir buu u tukan jiray. waa jamcu taqdiim markaa, tii horena waa jamcu ta'khiir. uma kadibna saara waa socon jiray. wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal lay waslam ida irtaxala hadduu rarto qabla almaqhribi, maqhribka ka hor, salaaddii maqhriboon soo gelin hadduu socodka bilaabo, ahara mid dibdhiga ayuu ahaan jiray almaqhrib, maqhribkuu dibdhigi jiray. ilaan markaa socod buu ku jiraa, uma degi jirine salaada wuu dibdhigi jiray. xataa yusalliyahaa ilaa uu tukado salaada maqhrib maca alcishaa, cishaha la jirankiisa uu la tukado. xilliga cishaha buu marka degi jiray, markaasuu labadoodii isla tukan jiray. waida irtaxala hadduu rarto bacda almaqhribi, maqhribka gadaashiisana, cajala wuxuu soo dadejin jiray alcishaa, cishuhu dadejin jiray. maqhribkuu tukanayaa, kadibna cishihii buu isla tukanaya. cajala wuu dadejin jiray alcishaaa, fa sallaaha, cishihii buu tukanayaa marka maca almaqhribi, maqhribka la jirankiisuu tukanaya. rawaa waxaa wariyay axmed wa abu daawuud watirmidi. alimaamu tirmidi wuxuu leeyahay xadiidkani waa xadiid xasan oo saxiixa. ibnu lqayim wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix. sheekh albaanina wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn, laakiin xadiidka culimmada qaarkood baa cilaynaya oo waxaa cileeyay abu daawuud, alxaakim, ibnu xasmi iyo kayrkood baa xadiidkan cilaynaya. xadiidku waa xadiid sugan cala saxiix, waana xadiidka ay u deliishanayaan culimmada qabta in ay jamcu taqdiimka iyo jamcu ta'khiirkuba bannaan yahay.
haddaad soo hormarisana waad heli kartaa tii dambaysay haddaad tii horraysay dib dhigtana waad heli kartaa to kale aad la tukata labaduba waa bannaantae culimmada qabta ayaa xadiidkan mucaad ibnu jabal daliishanaya ayb waana culimmadaasi waa jumhuurta waxaa qabaa fuqahada saxaabo badani way ku tageen fuqahadana waxaa ku tegay alimaamu thawri shaafici axmed iyo isxaaq waxay leeyihiin ama ruuxaasi markaasi socod degdega ha ku jiro ama socod ha dul saarnaado oo markaa socoto ha ahaado ama markaa yuusan socodba bilaabina laakiin safar guud uun ha ku jiro wuu jamcin karaa ama ha hormariyo ama ha dibdhigo labadu waa u bannaanta xadiidkan mucaad bay deliishanayaanoo dee nebiga sal lay waslam isagoo tabuuk u socduu sidaa sameeyey waa hormariyey waa dibdhigay intaba waa bannaan tahay bay leeyihin masaladaasina waa siday u xoog badan tahay sida raajixa waa ayb madhabka saddexaad ee masalada ku jiraayay waa madhabka abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib wey madhabka xanafiga oo iyagu maba qabaan jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir toona ilaa maalinta carafa la joogo duhurka iyo casarka iyo habeenka musdalifa la jiifo maqhribka iyo cishaha xanafiya intaa unbay qabtaa in la jamcin karo laa hormarin walaa dibdhigi toona abu xaniifa ma qabo wax la yidhahdo jamcu ta'khiir iyo jamcu taqdiim ilaa labadaa meelood mooye saas daraaddeed xanafiyada inaad ku karto jamcin ma fududa qolyahan soomaali tabliiqee wareega xataa fii axraj alaxwaal inay uun gaadiidka ka hadhaan mooye hadday salaadu qabsato inay jamciyaan ka sugi maysid laanna waa muqallidatu lmadhab waay yacni madhabka xanafigaa bay mutacasibo u yihiin yacni marka ma qabaan xanafiyadu jamcinta ma qabaan ilaa labadaa meelood mooye ayb masaladu marka waxay u xoog badan tahay saddexda ra'yi ee ku jira waxaa xoog badan ra'yigaas ay imaamu shaafici iyo axmed iyo isxaaqi ay moreenoo adil axaadiistu ay kutusaysaayo inay labaduba bannaan yihiin horumarinta iyo dibdhigiddu labaduba inay bannaantay axaadiisteeduna waxaa ka mid a xadiidkan mucaad ibnu jabal baa ka mid a وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي كان وحوها في السفر سفر كدحديسة إذا كورتي زاغد أي إيلة الشمس قرحذو في منزله ميشو دقنا دحذيذ ميشو دقنا إساقو تشوغا أولي دقاقين ررانين هذي قرحذي إيلة هي جماعة أيو أهانشر ميت كل مية بين الظهر والعصر بكل منشر قبل أن يركب إنتو صنفول gaadiidka oosan dhaqaaqin waa jamcu taqdiim casarka la soo hormarinayaa salaada duhurku la tukanaya waqtigii duhurka fa in lam taziq hadaysan ilanin lahu fi manzilihi booskiisa meeshuu deganaa intuu degan yahay hadayna ilaninna saara waa socon jira intaynan qoraxdu ilaninoo xilligii duhurka la gaadhin haddii ay noqoto inuu socdo intaysan qoraxdu ilanin haddii uu safartiisa bilaabana waa iska socon jiray xataa idaa xaanat markay soo dhowaato alcasru casarku markay soo dhowaato fa jamaca markaasuu kulmin jiray bayna alduhri waalcasri buu kulmin jiray xataa idaa xaanat alcasru miya nazala miyuu idiin qoree nazala markaasuu degi jiray fa jamaca markaasuu kulmin jiray bayna alduhri waalcasri duhurkiiyo casarka dhexdooduu kulmin jiray ayib adiga haddii xilligii duhurkoon soo gelin uu socdana duhurkuu dibdhigi jiray leanna markaa waa socdaa haddii uu duhurkoo soo galay uu socodka bilaabayana casarkuu soo hormarin jiray wuxuu diidayaa asagoo jid hayoo socda inuu salaad u dego uu dibdhigi karo salaad aad dib u riixi karto looma dego safarkaagaa la wataa dibna waa loo dhigaa taasaa laga wada ayb waidaa goortii xaanat ay dhowaato lahu isaga almaqribu maqribkii ay dhowaato fii manzilihi meeshuu deganaa dhexdeeda isagoo meeshiisii degan haddii maqribku soo dhowaadana jamaca wuu kulmin jiray baynahaa maqribka dhexdiisa iyo wa bayna alcishaai cishaha dhexdiisa maqribkii cishuhu markaa isu geyn jiray oo cishuhu soo hormarin jiray waay waidaa lam taxin haddayna dhowaanin fii manzilihi meeshuu degan yahay dhexdeeda haddayna maqribku soo dhowaaninna rakiba markaa waa fuuli jiroo socodkuu bilaabi jiray maqribkii ma soo dhowa wakhtibaa ka laaban socodkiisuu bilaabi jiray
maqribka u soo gali jiray isagoo marka socodkii wada oo socota hatta idha kan umadagi jirin marka waa ka socon jiray hatta idha kanat al-isha markay ahaato oo waqtigeeda la gaaro ayuu nazala dagi jiray fajama'a markaasuu kulmin jiray baynahuma ishihi iyo maqribkii oo marka la soo dibdhigay رواه وري أحمد وريي كذلك وحى صاري عبد الرزاق يا الطبراني يا دارقطني يا بيهقي ورواه حوش وريي بالشيخ الشافعي وري في مسنده بنحو حديث كامل لمد وقال وحنا يلي فيه حديث كدحديثا وإذا سار هدو صعده قبل أن تزول الشمس قرحه انت سنزول أخر الظهر قدب ليجري حتى يجمع إلى كل بينها وبين العصر عصر يضا دحديدا في وقت العصر عصر وقتيسا دحديسا الى او كلميه معنا حديث كان عبد الله بن عباس سندكيسو وحو كو wareegaysanaya nin la yiraahdo Husayn ibn Abdullah ibn Ubaydillah ibn Abbas Husayn ibn Abdullah ibn Ubaydillah ibn Abbas oo dhaif ah ayaa sanadkiisa ku jira saas daraadeed xadiidka sanadkiisu waa dhaif laakiin xadiis ahaan waa sahih صحيح كويهاي لشواهده حديث كهوري معاذ بن جبل با عمر قاتي كعيه iyo xadiis kale taba marka shawaahidaasu ku xoogaysanaya oo dacfigiisa kabaya saasuna xadiisku ama hasan ama sahih ku noqonaya wuxuu faa'iideeyay xadiiskani macnihi uu faa'iideeyay xadiiskii ka horeeyay oo ah inay banaan tahay dibdhigida iyo horumarinta labaduba waa manada madhabka culimada aan soo sheegnay وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إساق استغيث واللوسو قيليي على بعض أهله أهل كيسة قار كميدا كوركودا لوغسو قيليي إساقو مكتشوغا أيا سنال حاسس كيسة كميدا صفية بنت أبي عبيد لليج بنت أبي عبيد أيا الله صوش شيغي إنو حال كيدو أدقيه سكراته ساسوي معنا سيد رواية أبي داود استصرخ على صفية وهو بمكة سوق مكة شوغا باقيلة أغتمد صفية وليلة حال كيدو وعلسي طيب فجد مركاسو لدد علي أما لدك دقي به إساق الصير صعد كيبا لدك دقي رضي حالك دقا كوهيسط وإن تسيد دقا صعد دقا كشوي معنا جد به الصير ولدد عليه صعد وحو قلي دقا كقارة معنا يعني geerideeda inuu ka gaaro raba hadii hortii geeritan aaska inuu ka gaaro فاخر markaasuu dibdhigay al-maghrib maghribkii buu dibdhigay hatta gaaba ila uu ciilay ama uu tagay ash-shafaq guduudkii ila uu tagay anagi soo marnay shafaq ila uu guduudku tagay ama cawaweertu tagtay ayuu maghribkii dib u dhigay thumma kadibna nazala waa dagay fajama'a uu kulmiye baynahuma maghribkii cishihii buu jamciyay طيب ثم كذبنا أخبرهم وحو أشيغي دادك للسعودي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك كان إنوها يفعل مثل ذلك أرنك إذا قرتي جد ولدك دقو به إساق السير صعدك ولدك دقو صعدك مركو لدنا بوبو أما ولد دالو أما ولدك دقو مركا سيداسو سمين شريب للنبي صلى الله عليه وسلم روح وري الترمذي وبوري بهذا اللفظ كان أيوكو وريي وصححه ونصحيحي كذلك سيده وينو شيغي دونو waxa wariyay Ahmad iyo Abu Daawud iyo Nasa'i Sheikh Albani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa sahih ala shart ash-shaykhayn Bukhari bana soo saaray min tariiq ukhra Muslimna qaybta marfuuca buu warinaya oo ah kana yaf'alu dhalika idha jadda bihi sayr طيب ama Bukhari athar ka dhan buu soo saaray oo warinaya macna athar kan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu iyo nabigana uu ka warinayo kana yaf'alu dhalika idha jadda bihi sayr wuxuu daliil u yahay in uu banaan yahay jamcu ta'khiirka sooma laana maghribkii buu dibdhigay oo cishaha la tukaday wuxuuna yiri nabiga sidaas sameyn jiray markuu safar degdega ku jiro طيب كلمه اذا جد به السير اذا جد به السير لفظها waxa daliishanaya imaam Malik ba daliishanaya oo wuxuu ku tagay jamcu wuxuu banaan yahay on ruuxu markuu safar degdeg ah ku jiro oo ay arin haysato oo uusan yaani iska muxuu ahaayay xaaladiisu ay caadi ahayn xaalada adagoo safar degdeg ah markuu saaran yahay marka buu jamcu banaan yahay buu Imaam Malik alayhi rahmatullah xadiidkan uu daliishaday
atbaacda imaam maalik qaar ka mida sida ibn xabiib oo kaleetana waxay leeyihiin markaad jid saaran tahay unbuu jamcu kuu bannaayay laakiin axaadiistu qaar ka mida arrinkaa way radinaysaa ayb ومعناه حديث كان معنيه سوحر لسائر الجماعة جماعة انت هذا كلو أسقنا هذا إلا ابن ماجه موي حديث كابن عمر مثل معناه وحاوري سي جماعة ذا وريسي ابن ماجه موي هذا صموصلين رواه أحمد صموصلين وحنا رواه الترمذي انت كلنا وي وريين لكن لفظيا ميدان هم بيكوريين جماعة ذا وريسي وحا كميدا بخاري ومسلم با كميدا بخاري وحو وريي أثرك انت مرفوع على وضبه مسلم نوحو وريي انت مرفوعة وكان إذا جد به السير يعني كان يفعل ذلك إذا جد به السير نبي كورنا صلى الله عليه وسلم حديث تاسي مركا وحي حوجينيسا ورجحيسا مذهبك عن صوت الماني إن إمام الشافعي أحمد غير كود قبان أواه إنه بناي هاي جمع التقديم كي جمع التأخير كلا بضب وأنا سيد الراجح باب جمع المقيم لمطر أو غيره عباوية جمع المقيم يعني إمام الشافعي عليه رحمة الله حيالا أود للشيء وحكم ذا إن روحوا يسوون شيء سارنين وجمعين كريو حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم محوها هاي ماشي اللي هذا مركو تبوك تشوقي السوون صعطاه وان صمرني السوون صعطاه إنه دجن أيو جمعين يي مغرب كي عشاء يظهر كي عصر وقالي وصباحي أذن وجمعي وقالي وصباحي أذن وجمعي مركب وحولي هاي دخل فخرج waxay ku tusaysaa inuu soo musaafir ahayn socotana ahayn saas macna marka in sharti looga dhigo ruuxu inuu jid saaran yahay ma laakiin guud ahaan waa inuu musaafir yahay dad musaafirtood meel degtay walina xukunkii musaafirka aad leedahay waad jamcin kartaa dadaalan tahay hadii mesela duruufo kale ku haystaan ayadoon duruufo ku haysanin baad iska jamcin kartaa maadaama aad musaafir tahay walow shaafiiciyadu ay leeyihiin al-awla waxa weeye hadayna markaas safar socod u san jirin oo uu markaa degan yahay sida fiican inuu san jamcinin waa لكن هو بنان تايبلي باب جمع المقيم روحي النجا جمعين كيس أيو بابو يهي لمطر روب درتي وجمعيه أو غيره أما الروب كوحان أهين مقالة هذه بتشوكتا سفر نمتيهت إن أجمع صو روب أما صواب كله أسباب الله جمعين كري الروح يسوقوا عن سفر أهين روب كاسي وامد فقهاء qaarkoodna waxay sheegaan sidoo maalig oo kale haday dhooba jirto ama mugdi jiro labadaasina wuxuu yiraahdaa isaga madhabkiisa waa sabab kamida asbaabta loo jamcin karo salaada aymada qaarkood waxay qabaan haday dabaylo dhacayaan haday dabaylo jiraan ayadana waa loo jamcin karaan bilay تضبط وثمانيا يسدد بوقت كذي تضبط مرأة هل وقت إصلاح إيوه سدد هل وقت إصلاح وكوف السريو الظهر أيوت كذي والعصر يا عصرك كواسي واسدد والمغرب أيوت كذي يا والعشاء عشاء كواسي وتضبط بمعنى وحوي مغرب كي عشاءنا وو جمعيي او تضبط دي اسليه ظهر كي عصر كان وو جمعيي او سديد باسليه متفق عليه طيب وفي لفظ كلا وحا كسغن او للجماعه جماعه اسغناتي جماعه ورينيان الا البخاري يا ابن ماجه موي بخاري بن ماجه موي انت كلا اي ورينيان لفظيغاسي وحوي جماعه وو كلميه نبيغو بين الظهر والعصر عصر كي الظهر كدخدودو كلميه وبين المغرب والعشاء عشاء يا مغرب كان وو كلمي بالمدينه مقاله مدينه دحديدو كلمي سواء سفرها انه مقاله مدينه جو من غير خوف عبس الان سواء عبسي اين جيرين عدو سنسارنين ولا مطر يروب الان عبسينا ما جيرتو عدو لغا عبسنايو وما جمعنين روبنا مدا اينينو روب درتي وما جمعنين يدو لبدا من جيرين بو سلاديه جمعيه طيب قيل وحا ليدي لابن عباس من عباس وحا لويدي سؤاشنا لويدي ما أراد محول ولتشيدي بذلك أرنكا النبي صلى الله عليه وسلم سلادها أو جمعيي شددوا محيه
qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas araada wuxuu doonayey nebigu sal alay wasalam allaa yuxrija inuusan cidhiidhi gelinin ummatahu ummaddiisa ujeeddadu waxay ahayd inuu ummaddiisa cidhiidhiga ka saaro oo wax cidhiidhi ah ama diiq ah ama xaraj ah inuu ummaddiisa kala dagaalamo saasay ahayd ummaddu inaysan diintu cidhiidhi ku noqonin oo ilaahay maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj xaraj iyo cidhiidhi inuusan ummadda gelin saasuu ula jeeday ayib riwaayada muslim laba lafdiba wuu ku wariyey imaamu muslim min hayri khawfin walaa matar waa sida inoo qoran waa riwaayada labaadii waxa weeye min hayri khawfin walaa safar iyadoona cabsina jirin safarna uusan ahayn sida ibnu xajar uu leeyahay ma jirta riwaayo saddexdaba isu geysay oo tiri min hayri khawfin walaa matarin walaa safarin saddexda riwaayo kulmise ma jirto waxaa la isku khilaafsan yahay ma safar baa mise waa matar khawfka waa la isku waafaqsan yahay min hayri khawfin labada riwaayada way keentay laakiin ma waxaa raacsan safar mise waxaa raacsan matar الشيخ الألباني عليه رحمة الله مركو رواياتك حديثك يطرق أروريي وحا أصوب حذي إن أي صحتهي ولا مطر ورواية ولا سفر وشاذ بليه وشاذ ولا حق بدنيها وضعيف تن إنو قرن من غير خوف ولا مطر بصحة أو صواب أو محفوظة ساسولي طيب حديث كني الشيخ وحيري قلت وحان ريبوري وهذا كني واش مؤلف كواه يدل وحو كتصيا حديث كني بفحواه مفهوم كيس وحو كتصيا على الجمع كل من للمطر الروب كدرتي الله كل من كرم فهم سيدا لقى فهم يوا معناها لقى فهم يوا حوي إن لكل من كرم الروب درتي صلاة الله كل من كرم وللخوف عبسي درتيدنا إن الله كل من كرم وللمرض حنون درتينا الله كل من كرم حاجة لقى قاتي فحوها أما معناه أما مفهوم كأن تصيح جوا لبو من غير خوف ولا مطر بكعديه مرض كان حجابك كياني وحوك قاتي أراد ألا يحرج أمته لأن مريض كحرج بكجرة هل كاسو يدنا كلبه وإنما خولف ولا خلافي بوري ظاهر منطوقه حديث كان منطوقي سظاهر كيس ولا خلافي في الجمع كل من تدحديدا لغير عذر دار الآن لكل ميو حديث كني سيدو كليت منطوقة يفحوها فحوها مفهومك منطوقنا وحلي لذا حديثك محل النطق جيس وحقه كوتصي مركات كل دواقض دواقاسي وحي المعنى لقى قادنا يوحلي لهذا منطوق دواقاس مركي آد كل دواقض معناها سود دقدقية معنى لقى فهم يوكالي كان وحلي لهذا فحوى الكلام أما مفهوم الكلام بالله marka faxwaha ama mafhuumku wuxuu ku tusayaa in loo jamcin karo matar iyo khawf iyo marad sooma mantuuquna muxuu ku tusayaa mantuuqisu wuxuu ku tusayaa nabigo jooga oo aan safar ahayn socotana aan ahayn waxaan u jeedaa safarna ahayn roobna haysanin inuu salaadihii jamciyo magaalada madiinana jooga sooma magaalada madiinana jooga ابن عباس وحديث كورنا يمرك لو يدينا وحيري وحولت شيء إنه مدي سعيري قليلين حالك قاعد المرك وحالك فهمي حتى أذن عذر دار بلاهين on dhibaba ku haysanay ba in la jamcin karo maxaa laga qaadan mantuuqa laga qaato طيب marka hadaad mafhuumkii ku socotay mantuuqana ma ku socotido aad tiraahdid cudur daar ba iyadoon dhibba jirin cudur daarna aadan lahayn salaadaha waad jamcin kartaa sida mantuuqa waad ku socotido taana qaadatid taa waxa looga tagay buu ku leeyahay ijmaaca darti baa looga tagay oo maxaa lagu ijmaacay buu leeyahay inaan salaadaha la jamcin kareynin cudur daar la'aan maadaama ijmaacu uu ka hor yimid xadiidka mantuuqiisa ijmaacaasa marka mantuuqa meesha ka saaray mafhuumka man qaadanayna way marka mafhuumka man qaadanayna
معناها way macnuhu doonay inuu sheekhu sharx cadeeyo macnaha wa inma khulifa wala khilafay budu dhaahiru mantuqihi hadithka mantuqiisa dhaahirka ka muuqday wala khilafay oo fil jam'i kulmina li ghayri udhrin udurdar la'an in la kulmiya iyadoon udurdar ba jirin salaadihi hal la kulmiyo hal iska wado taa iyada wala khilafay maxaa loo khilafay lil ijmaa'i ijmaa'a dartiba loo khilafay oo kuwan kale maxaa u khilaafi weyday ijmaac ma jiro منطوق مفهومك waxaan u khilaafi waayay oo waxaan uga tagi waayay علشان ijmaac buriyaan jira ijmaac diida ma jiro wal sidoo kale waxa looga tagay wali akhbaari al mawaqit iyo ahadiista ku soo aroortay waqtiyada salaadaha kow waxaan uga tagnay xadiidkan dhaahirka mantuuqiisa waxaan uga tagnay laba sababood ijmaaca oo diiday salaado inaan cudur daar la'aan la kulmin karin laba ahadiista ku soo aroortay salaadaha waqtiyadoodo fara badan oo inoo cadeeyay salaad walba inay waqti leedahay gooni ahadiistaasina waa diidanta oo dhaahirka waxa ka muuqda salaad walba in waqtigeeda la tukado ahadiistii faraha badneed ee aqaad salaad ku soo aroorteen soo marnay taasoo tilmaamaya fayabqa marka waxa soo haraya buu marka hadii mantuuqiisi ijmaacu iyo ahadiistii awqaadu ay meesha ka saareen maxaa soo haraya marka fayabqa waxa soo haraya فحواه حديث كمفهوم كيسا على مقتضاه سيدا او كينا يوكسو هريا او محنا يعني ان او محو هاي مطر يا خوف يا مرض يا كوا ان لو جمعين كري تاسو كسو هريا وقد صح وحا اصحيب ارنتي marka si xoojinaya وقد صح وحا اصحي الحديث حديثك واصحي في الجمع كل من للمستحاضه لو كلميو للمستحاضه اسغناداي جمع وهوينيدا ديق شبانka qabta ama dhiig furanka qabta inay jamcin kartana xadiidkeedu waa asaxay aan soo marnay Sooma wakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam muxuu ahay dad kari karto doorka yaxri dibdig casarkana soo hormar isla tuko Sooma maghribka dibdig cishahana wax soo hormar isla tuko طيب والاستحاضه dhiig furankuna نوع مرض ونوع حنون ككمده انت صورن محو لا جيدا wuxuu doonayaa in uu ku soo saaro roobka garanay isaga laakiin xanuunkana markuu ruuxu xanuunsanayo xaraj buu ku jira ciriiri buu ku jira salaadaha uu jamcin kara maca daliilu waxa daliilu xadiidkan oo li alla yuharrija ummatahu مريضku xaraj buu ku jiraaba maadaama uu xaraj ku jira jamcu waa u banaayay waa mid labaad daliilka labaad haweenaydii dhiig furanka qabtay shariicadu waxay u ogolaatay inay jamcin karto dhiig furankuna waa nooc xanuunka kamid ah taa waxay kala baxayaan waa xanaabilada madhabkooda waa madhab ahmed waa jamcul in ay u banaantahay ruuxa xanuunsanaya inuu jamcin karo salaadaha waa madhab ahmed kaasu marka adiladiisi uu soo saaraya meelaha ka soo saaraya macna saasuya wali malik waxa u sugnaaday fil muwatta hadithkaasi marka muxuu ahaayay abdullah ibn abbas waxa dalishanaya culimada qaar kood oo qaba in salaadaha la jamcin karo iyadoo uu ruuxu safarna ahayn roobna uusan jirin laakiin xaaja haysato shardi waxay ka dhigayaan waa inuusan caado ka dhiganin inuusan caadaysanin oo uusan wax joogta ka dhigan laakiin marka qaar kood adoo magaaladaadii jooga xaaladi ku qabsanaysa xaaladda ku qabsanaysa ay waxa laga yaabaa inayna ku saamixin inaad salaadii maghribka tukato ama kugu adkaato waa dib dhigi kartaayo cishaha la tukan kartaa bilay waxa kamida culimadaas oo culimadii salafka rag badan oo kamida ibn sirin ba kamida muhammad ibn sirin waxa kamida rabi'atu ar-ra'yi ba kamida ninkii imam malik sheekhiisa ah waxa kamida al-hafiz ibn al-mundhir waxa kamida ninkii la dhigi jiray al-qaffal oo kabiirka aha qaffalul kabir al-imam al-khattabina wuxuu ka soo guuriyay koox asxaabul hadith kamida madhabka qabtabu waxa kale madhabka qabay oo sida ku tagay lil haaja in loo jamcin karo
shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah. qaar ka mida culimmadu waxay leeyihin xadiidkani waa saxiix laakiin waa matruukulcamal, camalfalkiisa waa laga tegey. imaamu tirmidi iyo rag laa qaba, laakiin lagama tegina a'immadii salafka qaar baa qabay, muta'akhiriintiina qaar baa qabay. ruuxu isagoon safarna ahayn socotona ahayn inuu jamcin karo lilxaaja, lidaruura maaha, daruuradu waa xaalad sii adag, laakiin lilxaaja waa u jamcin karaa bisharti an laa yattakhida dalika caadatan, waa inuusan caado joogta a ka dhigan, laakiin marmar bay ku qabsan kartaa maalan. taasay qabaan macnaha. xadiidkan ayay deliishanayaan oo nabigaa sameeyey bay leeyihin sal lla alay wasalam. ayib, waxaa sidaa khilaafsan jumhuurta oo waxay leeyihiin lama jamcin karo ilaa cudurdaar inuu jiro sharci a mooyaane. xadiiskan cabdilaahi bni cabbaasna waxay kaga jawaabeen jawaabo ay ugu roon tahay inay yidhaahdeen jamcii nebigu sameeyey ibnu cabbaas uu sheegay ma ahayn jamac caadiya, wuxuu ahaa jamac suuri ah. jamca suuriga waxa la yidhaahdaa waa in labada salaadood laysugu keeno wakhtiga ka dhaxeeya, mid walba wakhtigeedii baa la tukanaya, waana laysla tukanaya. maxaa la samaynayaa? tii mustaxaadada loo sheegay waay. duhurkaad dib dhigaysaa, wakhtigiisii ugu dambeeyey markuu marayo baa tukan. markaad ka baxdayba casarkii baa soo galay, casarkiina awalkaad ka tukato isla markaaba casarkii baad isu taagtay. ilan way isgalaan soo maha, saan soo marnayba. yacni tani markay sii baxaysaba tii kalea soo gelaysa. meeshaa ay isugu imaanayaan markaad midna wakhtigeeda ugu dambeeya ka tukato, midna wakhtigeeda ugu horreeya aad ka tukato, halka aad isugu keento ayaa waxaa la yidhaahdaa jamac suuri ah. jamac suuriyaa la yidhahdaa. sidaasay mareen oo xadiiskan kaga jawaabeen. waxay yidhaahdeen jamac ma ahayn salaada wakhtigeedii laga soo saaraye, salaad walba wakhtigeedii buu nebigu tukaday sal lla alay wasalam, laakiin wuu isu dhoweeyey. sidaasay marayaan. waxaana ra'yigaas ama tafsiirkaa xoojinaya riwaayada nasaa'i. alimaamu nasaa'i riwaayadiisa xadiidka cabdillahi bni cabbaas markaad fiiriso macnaha way xoojinaysa oo wuxuu leeyahay sallaytu maca anabiy sal alla alay wasalam, waxaa dhahay ibnu cabbaas alduhra waalcasra jamiican, nebigaan la tukaday buu yidhi duhurkiiyo casarkoo wada jira, waalmaqhriba waalcishaaa jamiican, maqhribkiiyo cishahoo wada jira. ahara alduhra wacajala alcasra wa ahara almaqhriba wacajala alcishaa. duhurkuu dibdhigay, casarkana waa soo dadeji. ayib, maqhribkuu dibdhigay, cishahana waa soo dadeji. lafdigaasay ka qaateen, waana xadiis saxiixa. jamca suuriga abuu xoojinayaa. waxaa kalooy ku xoojiyeen ninka ibnu cabbaas xadiidka ka warinaya abushacthaa baa la yidhaahdaa. camru bnu diinaar ayaa weydiiyey oo wuxuu ku yidhi abushacthaayow, macnaheedu soo ma aha duhurkiiyo casarka, duhurkuu dibdhiga casarkana waa dadeji, maqrabkuu dibdhiga cishahana waa dadeji, soo saas ma aha? saasaan u malaynayaa buuhi. marka ninkii xadiiska warinayayba hadduu isaguna saa u maleeyey, lafdigan nasaa'ina uu macnaha ku tusayo, jamacu waa jamaca suuriya. halkaasay jumhuurtu mareen oo xadiiskan jawaabtaasi ka bixiyeen. jawaabtoodana jawaabo kalea laga bixiy. haddaan sii dabagallo waqtiga aynugu dheeraanay, laakiin iyaga laftooda looma sallimin jawaabtoodee waa laga daba tegey. oo waxaa ka mida ragga ka daba tegey muxuu ahay rag badan, uu ka mid yahay muxuu ahaayey alimaamu nawowi iyo shawkani iyo qolyale, walow shawkani marka dambe madhabkan kala qaadanayo, khataabi iyo, oo waxay leeyihiin jamac suuriya sidiisaba isagaaba salaada gooni in loo kala tukado isagaaba ka xaraj badanba. jamaca suuriga ah salaad walba wakhtigeeda la tukadaa dhaantaba. maxaa yeelay waxaa adagba inaad hesho salaadani wakhtigeedu goortuu dhammaanayo, tanina wakhtigeedu xilligu soo galaya inaad isla fiirsato, taasaaba mashaqaa bay dheh. aarkuna muxuu leeyahay araada an laa yuxrija ummatahu. marka hadduu jamc suuriya ahaan lahaa kanaaba ka xaraj badan bay leeyihin. jamcii muxuu ahay salaadihii gooni loo tukan lahaa, tanaaba ka xaraj badan. adiga warkeed masaladu masalo dood badani ku jirta. xadiidkan cabdillahi bni cabbaas muran badan baa ku jira. sida rooni waxa weeye in la yidhaahdo lilxaaja waa loo jamcin karaa, laakiin caadaha ka dhiganin. sheikhulislaam ibnu taymiya a'immada aan sheegnay siday marayaan ayaa fiican. ama masalada ku saabsan roobka dartii ma loo jamcin karaa,
xadiidku wuxuu ku tusayaa in loo jamcin jiray xilliga isaga wala matarin lafdadaasana laga faa'iideysanay ولمالك مالك وحا أسقنادي بيقول في الموطأ موطأ وحكورنا يا كتاب كيس موطأ عن نافع وحكور أن ابن عمر عبد الله بن عمر كان إنها إذا قرتي جماعة أي كل ميان صلاة الأمراء مضحضوا بين المغرب والعشاء عشاء يا مغرب كالحدي سمركي كل ميان في المطر الروب درتينا أي كل ميان جماعة ابن عمر وكل من شري لوضع صلاة معهم أمراء اللي كود مضحضة أيادتك توشين شري وليبا أئمة الجور بيقار بدن أهاية صلاة المغرب كي عشاها مركي جمعيان روب درتي عبد الله بن عمر وكل راعج ولا جمعيج أثر كاسي سيدو كروحة صوصاري ابن أبي شيبة وأنا أثر صحيح الإسناد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إنه جمع مغرب كي عشاها الروب درتي مضحضة إنه كل راعج رارين تايضا ولا تكنشر طيب أثرم وحاوسقنا ذي في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وتابعي أنه يسوي قال إنه يري من السنة وحاكمها سنة أن سوقرني وحاكمها إذا قرتي كان هذا يوم مال مطير أو روب له أن يجمع إن لكل ميو أما أن يجمع إنه إمامك كل ميو بين المغرب والعشاء عشاء المغرب قد يحضر إنه كل ميو السنة ذي كم تايبول أخرجه ابن وحصوص علي أثرم كذلك وحورنا ابن أبي شيبة بيهقي في السنن معرفة الآثار والسنن وكورنا معرفة السنن والآثار مركا يعني وحو كتوسيا إني عند السلف أي عان أهيد روب كدرتي إن صلاة الله جمعيه طيب روب كدرتي إن صلاة الله جمعنا ينا شروطها بكو كلا قدسنا ذيني لكن ومذهب مالك أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوية إمام الشافعي يا أبو ثور يا غير كود بقى ابن منذر بمعنى وحويان هدور روب تشيرو إن صلاة الله جمعنا طيب إن الشروط دي كوكا للدوين هي أسباب تلقوا جمعنا وإمام مالك وكالسان صوشيك نبوحوا قبا حتى هدي روبة تشيرتو ولا جمعين بوليه هديو مقدي تشيرو ولا جمعين بوليه أي مكلا كوافقسن أي مكلا كوافقسن إن هدي الضبيلة تشيران قاربا قبا شافعيدو يقو حيليهين والشرط كردقيان حلقة صلاة دهور اللي قليو إيه الصلاة ضد حلقة اللي قليو انت قد حيسوا إنو الروب دا أيو الشافعيدو يعني الصلاة ده مدة الضنب مركي اللي قلو هدو دون الروب كوهقو لكن انت اللي قليو وإن أي سبب كي عذر دار كي تاغي ساسو معنا المهم وحوي أما حديث كهوري أو حرج أمده إنا لقلينين وأراد ألا يحرج أمته هي قواعد عام كقرآن كتقريرية ورفع الحرج كا أما آثار تنكسو أرورتي حديث كان من غير مطر يا آثار الصحابة كسوغان السلف كعان كأهيد هالنقطة كل واحد فائدين ينحالات الروب تشيرو عليلي لبنة تشيرو إنه جمع يهي مشروع يهي ومحوء هاي على أقل تقدر للحاجة هدي الله عز كذا حتى يعني حديث عبد الله بن عباس وصعون كريه معنا باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما وحبابها الجمع كل من لودي صلاة الله كل مية بأذان هل آذان لغو كل مية وإقامتين يلا أقيمات لبا أقيمات من غير تطوع بينهما أيوة لوضع الصلاة الله جمعين يحضر الله السنة يسنن يعني وحوي لوضع الصلاة جمعين يسن ميد انتاد جمعيسو تكلا إناد سنيس انتادن تكلا قالين دحدودا إناد سنيستان لو قولين تان مركات كبحضر تكلا وإناد كش روب درتي إن لو كل مية صلاة رقم عصرين تديدا وحكم ذا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله الشيخ رايا مناد رسالة ليه رسالة كقري مركا dadka qaarkood baa sheekh risaaladiisa taqliidiya oo fatwadiisa wax ku dhisa وبالتالي مساجد روب درتي u jamcinaya salaadaha oo arka inay khaldan yihiin arintaasina arin sax ma
hadday noqoto sheekhna rag ka cilmi badan oo ka aqoon badan baa masalada qaba oo aymadii salafkii haddan soo sheegnay hadday mucaasiriinta noqotona culimo sunno oo ka aqoon badan baa qabta sheekh muqbil cali raxmatullah oo ka mid yahay sheekh albani ka mid yahay sheekh ibn baaz cali raxmatullah oo ka mid yahay sheekh ibn uthaymin aymadii sunnada ee ka aqoon badnaa baa qaba waa hadday noqoto sheekh iyo sheekh hadday masaladu aahaar noqotona lada salaf sida sheekh albani cali raxmatullah uu leeyahay caam bay ahayd in salaadaha loo kulmiyo matar dartii marka cala aqal taqdiir haddaadan adigu xataa samaynaynin ciddii samaynaysa ha u arkin inay bidca ku dhaceen cala aqal taqdiir waxaa tidhahdaa masaladu waa masalo khilaafiya adii qanaacadaada qaado hadaad rabto adii qanaacadaada qaado laakiin ummadahani meel bay salka ku hayaan raad bay haystaan raadka ay haystaan bay ku socdaan khaasatan magaalada nairobi khaasatan xaafadda islii wadcigeedu waa ka sii xag jiraan keliya roob baa inoo da'ay keliya meehe daad socda iyo dhiiqa iyo mugdi iyo tuug dadka ceejinaysa iyo wax badan baa isa saaran marka ciddii ummadda u samaysa muxuu ahaayey fududayn u samaysa lihadihi alasbaab salkana meel ku haysaay lafca toobin kuma hayo ama ruuxii isagu khiyaarkiisa khaaskaa qaadanaya isagaa iskale taa iyadaa nina la qasbi maayo ayb wuxuu baabu yahay jamcin la kulmiyo hal aadaan lagu kulmiyo iyo laba aqimaad wuxuu ka wadaa labada salaadood marka la kulminayo hal aadaan baa ka dhaxeeya oo hore kadibna salaad walba aqimaad bay leedahay ayb qodobka labaadna waxa weeye labada salaadood ee jamcinayso inaadan dhexdooda sunnaysanin عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي صلى وحو تكدي المغرب والعشاء dadka qaarkood ishkaal bay keenaan oo waxay yidhaahdaan muxuu ahaay masaajidka sigiska maqribka iyo cishaa unbaa la jamciyaa iyo duhurka iyo casarka maxaa loo jamcin waa ilan muxuu ahaay dulduleel badan baa la raadin oo kolba meel baa yaa lagaa soo geli haddii duhurka xataa ay muxuu ahaay roob da'ayo waa la jamcin karaa laanna cilladii baa jirta laakiin maqribka iyo cishaha bay ka sii daran tahay oo asbaabtu ka sii daran tahay saas isku mid maaha xagga mashaqada jirta marka la fiiriyo maqribka iyo cishaha waxaa dheer mugdigii oo aimada qaarkood ay qabaan keligiibuuba sabab noqon karaa salaada loo jamcin karo oo waxay dheer tahay khatar kaleeto oo magaalada socsocodkaasay ku yara fayowdahay haddii xilli dambe la gaadho roobna da'aya waa la kala carari ruuxa maalinkaa socdo mar keligii lugaynaya hadda waxa weeye wuxuu curdo u yahay wax walba soo ma amniyan xataa dhibkeeday leedahay marka maqribka iyo cishaha kulmintooda saas daraaddeed aahaarta cabdillaahi ibni cumar iyo a'immada iyo maqribkii cishaha ku yimid maqribkii marka ictibaar khaasay leeyihin maqribkii cishaha saas way macna ayib عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى وحو تكدي المغرب والعشاء عشاء بالمزدلفة مزدلفو كتكي جميعا أيغو إذل وإسلتو كدي كل واحدة متكستا أو منهما لوضى صلاة كمدة بإقامة بو كتكدي أقيمت صلاة والبو لوضى كمدة أقيمات بيله ولم يصبح موسى صنيسان النبي بينهما دحضر ولا على إثر واحدة متقداشت oo minhumaa labada salaadood ka mida midna gadaasheeda ma uusan sunnaysanin lam yusabbix baynahumaa dhexdooda muusan sunnaysanin walaa muxuu ahaay calaa ithri waaxidatin mid gadaasheedna muusan sunnaysanin oo minhumaa labadooda ka mida saas way macnaha xataa labadooda markuu dhammaystay tii u dambaysay gadaasheeda xataa ma sunnaysan ilan ta hore baaba loo cadeeyey rawaxa wariya xadiidka albukhaari baa wariya wannasaa'iyu ayb xadiidka waxaa daliishaday labada salaadood ee la kulminayo hal aadaan inay leeyihiin iyo laba aqimaad waxaa ku tegey alimaamu shaafici fi lqadiim axmed ibnu xambal alimaam ibnu xasmi ibnu maajishuun culimada maalikiyada ka mida alimaamu taxaawi shawkani baana xoojinaya saas way macnaha ayb xadiid baa jira cabdillahi bn mascuud laga wariyo bukhaari soo saaray oo ahar ah oo cabdillahi bn mascuud inuu samayn jiray mid walba salaadaha wuxuu ku tukan jiray aadaan iyo laba aqimaad ayuu ku tukan jiray marka kaasaa qaarkood qabsadeen
وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين لودي صلاتات بعرفة عرفة أي كتكذي بأذان واحد هل آذان وإقامتين يلبا أقيمات يعني عرفة لودي صلاتات اللي كتكنا يوا الظهر كي يا عصر كي لودي صل جمعنا يا جمع تقديم طيب وأنا مدة نري حتى حنفيض ويقبان جمع في المزدلفة ظهر كي عصر كجمع التقديم حنفيض ويقبان مذاهبتك الاسكبده واتى النبي وحو يمد المزدلفه مزدلفه ايو يمد فصلى وحو تكدي المغرب مغربكي والعشاء عشيه باذان واحد هل اذان واقامتين لبا اقيمات ولم يصبح من اوسن سنيسن بينهما دحضود ثم كدبنا ثم ضجع كدبنا وسخدي حتى طلع الفجر الى فجر كدش ابينك مركو عشاء تكدي wax salaad sunna isuma taagin waa salaatul layl ma tukan ila waagu bari habeenka wala daalan yahay maalinta hore dhan baa Carafa la taagnaa marka Musdalifa habeenkeeda waa la daalan yahay maalinta ka dambaysana waa yawmul hajj al-akbar a'maashi ugu badnayd baa sugaysa dadka habeenka marka uu iska seexan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ila waagu u bari saasay sunnadiisu ahayd mukhtasar waa xadiidkani mid la soo gaabiyay لأحمد حاله السنادي ومسلم والنسائي أيها وذورين يا معنا وحكتوس يا مركا لبدا ترجمة لبدا إذا قوبات بحديث كوا فايدينية وأذان يلبا أقيمات يئن عند حدود السنة سنين وعن أسامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لما جاء مركو المزدلفة مزدلفة مركو نزل وادقي كاديد كيبو كدقي هشي سيبو كدقي فتوضأ مركا سويسيس فأسبغ وحو دميستري الوضوء ويسيسي ثم كدبنا أقيمت الصلاة صلاة بالآقمي فصلى وحو تكدي المغرب مغرب كيبو تكدي ثم كدبنا أنا خو فريسي كل إنسان روح كسته بعيره نفكي سيجيلها أيو فريسي في منزله ماشي ودقنابو فريسي فهنو markii saal loo soo istaagay ba gaadiidkii on rarkii laga dajinin ba salaadii la aadamay waa la aqimay maghribkii waa la tukaday gaadiidkiina wali rarkii ba saaran oo lama dajinin awrtii geeli laga dajin markay maghribkii tukadeen kadib ba waxa la bilaabay marka in geeli la fariisiyo طيب ثم أنا خو فريسي كل إنسان بعيره في منزله ثم مركا كدب أقيمت العشاء وعشيه بالله أقيمي فصلاها مركز النبي قلت كذا صلى الله عليه وسلم ولم يسلم أنا أوسنتك أن بينهما دحضوضا شيئا وحبا موسنتك صلاة أمر دحيسين متفق عليه طيب حديث كان دنبا وحا قبصدي إمام الشافعي في الجديد أحمد نوال قوريا ووحي لهذين آدام بالله إيمان ما يلبا أقيمات بس الله إيمانا حقيقة قاتل وحيري فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة آذان ميوشيك حديث كأسامة آذان بمشيك أقيماتهم بوشيك لبدا الصلاة والله أقيمه هل كاسي كقاتل مركز شافعي غير كود وحيليهن أقيماتهم بالله السمينية لكن سيدة الصحيحة زيادة كتشرت حديث كجابر بزيادة وطور إن لا آذامي كتصية ساسي معنا مركز زيادة حديث كجابر با لقى قادنا يا هل آذان يلا بقى قيمات طيب وحكى له حديث كان لقى فايديسان أسامة بن زيد أو إنه فايدي لبض الصلاة دي اللي جمعين ياي إني اسكحرينهن شرط ما ساسي وحير أو فاصل أو لود حيسين كره حيالي مر الله مركي أي صلاة دي مغرب كتوكدين بي أورتي جيلي فريسيين رركي بي كدتشيين marka kadib baa loo soo noqday salaadii cisha marka fasliga noocaas oo kaleeta dib male labada salaadood ee la jamcinay tayib وفي لفظ كلا waxa ku soo rakiba nabigu waa fuulay hatta jiina ila aanu nimid wuxuu ka soo fuulaya bimaana arafa hatta jiina ila aanu nimid almuzdalifata fa aqama markaasuu aqimay almaghrib maghribkiibu aqimay thumma kadibna ana khannas dadki way fadhiisiyeen fi manazilihim meelahay deganayeen bay geeli fadhiisiyeen ولم يحلوا من أين فر حتى أقام العشاء الآخرة إلى عشيه دنب أي أقيمي فصلى مركاسو تكذا ثم حلوا ويفرن يعني وحوي فريسين بعيد قالي بالسوبر فريسي أما ررك كده كنتي صوحي هاي عشاء مركلو تكذا كده صح روح وري أحمد باوريي وفي لفظ كلوحة كسرا أتى المزدلفة أيوم ثم فصلوا وحي تكذا المغرب ثم كدبنا حلوا وحي فرين
rixaalahum rarkoodii bay fureen wa acantuhu anuguna waan caawiyey buuri uma kadibna sallaa wuxuu tukaday al-cishaa cishii buu tukaday had lafdigan iyo kii hore iskhilaafsan yihiin sooma kii hore wuxuu ka dhigay uun gaadiidka waa la fadhiisiiyey sooma laakiin rarkii lagama dejinin kan dambese wuxuu sheegay waa la fadhiisiiyey rarkiina waa laga dejiyey markaa kadib cishaa la yimi almuhim waxa weeye fasliga ama waxoogaa dhexgelinta shaqooyinka yaryarka la dhexgelinayo cishaha iyo maqribka waxaan u jeedaa labada salaadood ee la jamcinaya wax dhibaato ma leh rawi ahmed baa wariyay xadiisku waa xadiis sahih wuxuu sheekhu yiri marka huwa xadiiskani hujjatun wa hujjo وحجة iyo daliil yahay fi jawaazi tafriiqi kala geynta inay banaan tahay bayna almajmuucatayn labada salaadood ee la kulminayo dhexdooda in la kala geeyo oo xogaa la kala saaro fi waqti thaniyati salaada labaad waqtigeeda dhexdiisa la kulminayo labada salaadood ee talabaad tadambe waqtigeeda la isugu geeyay labada salaadood in la kala saari karo oo loo dhaxaysiin karo waqti ama shaqayar loo dhaxaysiin karo ayuu xadiisku tusaya oo uu daliil yahay macna oo in dabada la isugu qabto inayna sharti ahayn abwaab al-jum'ati jum'adi baabu yahay al-baab al-awwal at-taghlid fi tarkiha jum'ada ka tagitaankeeda oo aad loo adkeeyo طيب jum'adu waa waajib bil ijma' khilaaf shada ku jiro dha'ifa yani aynan bay waajib tahay ama waajib ayniya waa sida ibn mundir iyo ibn qudama ibn arabi soo guurinay ali ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabigu qala wuxuu yiri liqawmin dad wuxuu ku yiri oo yatakhallafuna kadib dhacaya anil jumu'ati jum'ada kadib dhacaya dad jum'ooyinka ka haraya oo aan iimaanaynin nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam laqad hamamtu waxaan damcay an amura inan amro rajulan oo yusalli tujiya bin nas dadka tujiya inaan nin ilaahdo dadka sii tuji salaada thumma kadibna uharriqa aan gubo ala rijaalin rakarkooda inaan ku gubo guryahooda raggaasoo thumma kadibna uharriqa aan gubo ala rijaalin rakarkooda raggaasoo yatakhallafuuna ka haraya ama kadib dhacaya anil jumu'ati jum'ada ka haraya buyutuhum guryahooda inaan ku gubaan damcay buyutuhum tawaafa'ilki uharriqa wa طيب رواه وري احمد باوري ومسلم يا مسلم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم او دمعay dadka jumcada ka haray guryahooda iska joogay meelaha duhurka ku tukanay inuu intuu cid kale salaada dadka sii tujido kadibna ayagiyo guryahoodaba inuu isku gubo haduu hamiyay macnaheedu waxa weey dadkaasi dambi weyn bay galeen dambi weyn hadaysan gali lahayna uquubada nabigu ma hamiyeen qaar baa waxay dhaw uu hamiyay miyuu sameeyay gaasay keenay te uu damcay laakiin ma sameeyay waxa lagu jawaabayaa nabigu waxaan banaanayn ma hamiyo waxaan banaanayn nabigu sallallahu alayhi wasallam ma hamiyo inay banaanta waxa lagu garan علشان uu hamiyo طيب riwaayo kale wadan soo marnayo jamaacada ku timido waxa ii diiday waxa weeyaan caruurta iyo dumarka guryaha ku nool ilaa waan ku gubi lahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam faa'iideynaya marka jumcadu inay tahay fardu ayn inay ruux kasta waajib ku tahay oo mukallaf ah oo rag ah oo aan musaafir ahayn adoon ahayn shuruuda soo socdo cidii waajib ku tahay baabka ku xigu kaga hadli doona وعن ابي هريره وابن عمر انهما لبدود سمعا وحي مقلين النبي صلى الله عليه وسلم نبيغا او يقول له على اعواد منبر كيسا محو هي قريهيس كركود اسغو صار وجمعود يعني منبرku wuxuu ka sameysnaa alwaax ama qoryo marka alwaaxda iyo qoryaha korkooda isagoo saaran nabigu sallallahu alayhi wasallam minbarka alwaaxdiisa isagoo dul saaran ama qoryihiisa ayay maqleen isagoo leh la yantahiyanna way ka reebtoomayaan walle way ka reebtoomayaan way deynayaan aqwaamun rag an wad'ihim ka tagitaankooda aljumu'ati jumcooyinka ay ka tagayaan bay deynayaan أو أما سهدي دين ويان لا يختمن الله ألا وشابدين على قلوبهم قلوب تودا كركود قلوب انت الله حلو أيا لا شابدين ثم كذبنا لا يكونن وحي أهان دونان من الغافلين كوا موك وحبب للسعنين لحدو كان عليا بار موك واي
kuwa aan waxba la soconin oo adduuniya aakhiraanka masaalixdoodana aan ogeyn kuwaasay ku darman doonaan rawahu waxa wariye muslim baa wariye waxay ku tusaysaa xadiidkani marka hanjabaad weyn baa ku jirto dadka jumcooyinka ka tagay fududaysanaya in ay ka dhalanayso in ilaahay quluubtooda xidho oo quluubta xidhideeda maxaa ka dhalanaya marka qalbiga haddii la xidho sharkii ku jirayna ka bixi maayo khayrna meel uu maro ma jiraba xumaantii ku jirtay baa lagu qufulay markaasa waliba hadana khatmiga waxa laga wadaa la yakhtimanna markii shayga la doonayo inaan la furin marka la xidho ka bid baa shaabad korka laga dhufta sooma mori ayaa korka laga saara marka si adag oo ina furmaynin baa loo xidhayaa وروى وري حديث أحمد باوري والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس استغنى سنة كيسوا صحيح على شرط مسلم وعن ابي الجعد الضمري وله الصحبة من كاس الصحابي بوها صاحب سحولي الصحابي نمولي وحلقة ورنا استغنى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال إنه يري من ترك الروح يكتك 3 جمع صدح جمع تهاونا فضضيس درتنا وقتك معها ضرورة maaha inuusan yani wax way ayna maaha inay dib haysato ama dhibaato waa iska fududaystayba dan weynba kama galin طبع الله alla wuxuu daboolaya ala qalbigiisa korkiisu daboolaya rawahu al-khamsatu ba warisay shanti ba warisay al-imam at-tirmidhi wuxuu leeyahay xadiidkaasi waa xasan waxa saxiixiyay ibn hibban hakim dhahabi ba ku waafaqay iyo sheekh albani wakadalika waxa saxiixiyay al-hafidh ibn sakan xadiidkaasi waa sugay wali ahmad waxa uu sugnaaday ibn majah من حديث جابر حاله نحو حديث كامل لمده نحوه حديث كامل لمده يعني أحمد بن ماجه وحي وريين حديث جابر لغا وينيو كاسو كلا لفظيgiisu waxa weeye kadalika waxa soo saaray xaakime man taraka al-jum'ata 3 ruuxi jumcada ka taga 3 weego macna min ghayri daruratin iyadoo wax daruuro ku kalifaysa aysan jir wax daruuro ama shay ku qasbay ayna jirin dib haysto oo ku qasbay uusan jirin ruuxi saa uga taga طبع الله على قلبه ساسو ku iimaanay طيب حديث السند كيسا وحا تحسيني الحافظ المنذري الحافظ ابن حجر هي شيخ الباني وحا صحيحين يا الحافظ البوصيري هو صحيحيي في المصباح دارقطنينا وحو ليهي وحو كصحيح سن يا حديث كهوري ابي الجعدي لكن لبد حديث way isxoojinaya طيب حديث كني وحو inoo sheegay laba qeyd cuquubadaasi ruuxa waxay ku dhacaysaa markuu kow oo fududaysi darteed u sameeyo tahaawunan xadiidka abul jacdi baa qeyd ka faa'iiday xadiidkan jaabirna qeyd kale ku darayo min ghayri daruratin kaasina wuxuu saaray ruuxii daruuro darteed uga taga waa jiran yahay مثلا meel foog buu jiraayo dadku waajibtay maaha xaalad baa qabsatay loogu garaabi karayo hadii uu daruuro darteed uga tagana ayadana waciidku ma qabsanayo qeydkaana xadiidka jaabir ba faa'iiday qeyd saddexaadna waxa faa'iideysay dhowr xadiis oo iyaguna sugano 3 jum'in mutawaliyat 3 jum'o isku xiga qeydkaasna waxaan ka fahanay haduu jum'o tukado tukala ka boodo xogaa uu isku xijinta ka yara ka cararo oo uusan wixii xidhiidhinin ayadana waciidka waxun buu ka baaqsan karaa laakiin waciidku wuxuu qabsanayaa markuu fududaysi u sameeyo daruurana uusan lahayn 3 jumcana isku xigaan خلاص waa u dhamaatay marka su'aal baa imaanayso oo dadka meelo badan ku nool khaasatan wadamada reer galbeedka Yurub iyo Mareykanka iyo xaalado badan baa haysto mararka qaar kood jumcooyinka ma iman karaan harbadan ma tukadaan jumca wala jamaa hatta ma tukadaan goonidaas meesha warshadu isaga qabqabo xogaa Yurub ka siin haya salaada haduu bati waajibkay tukada waa badalay marka ma soo galayaan jawaabtu waxa way baabka inoo soo socdaa waxaan ugu tagi doonaa yey jumcadu ku waajibtaa halkaas ay ku cadaan doontaa haday jumcadu dadkay ku waajibtay uu noqdo oo uu saa uga tagana waa soo galaya waciid hadaysan jumcaduba ku waajibinna oo uu galo dadka ayna ku waajibinna
dee markaa waciidku ma qabsanayo hada wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam